بسم الله الرحمن الرحيم. anigoo ah Aadam Cumar ahna maamulaha shirkadda AA Travel ah shirkad iibiso ama gado sida lagu bartay macaamiisheeda sharafta leh tigidhyada diyaaradaha waxaan ugu bishaareynayaa macaamiisheeda sharafta leh ugu xiran in ka badan muddo 8 sano ah inaan shirkadda ku soo kordhinay adeeg ama service ka duwan kii ay u barteen hore oo ah iibinta tigidhyada adeegaas oo ah adeegaas oo ka kooban dhowr qaybood qaybta koowaad waxay tahay in macaamiisha sharafta aan u helnay fursad ay ku yareyn karaan lacagaha gaar ahaan dadka aan awoodin family ahaan u dhoofayay aan awoodin hal mar lacagta inay wada bixiyaan inaan u helnay fursad ay lacagta si markaasi nidaamsan ay ku bixin karaan muddo 4 bilood ah 6 bilood ah ama 9 bilood ah iyadoo aan xujo loogu dhigaynin dhoofitaankooda ay dhoofi karaan oo lacagta iska yareyn karaan muddo 9 bilood markay dhoofaan kadib adeegga labaad oo kamid ah adeegyada aan ku soo kordhin shirkadda tigidhyada jirta ama iibinaysa ama tigidhyada gadaysa in ka badan 8 sano waxaa kamid ah in macaamiisha aan u sameynay adeeg la yiraahdo customer membership ama noqoshada shirkadda qof kasta loo sameeyo customer kaarka lagu magacaabo customer membership-ka wuxuu heli doonaa mar walba uu tigid iibsado bonus ayuu heli doonaa kaas uu ugu aruuri doona kaarkiisa bonuskaasna wuxuu isticmaali doonaa inuu marka dambe tigid ku iibsado ama uu ku helo qiimo dhimis uu ku helo mar walba uu tigid gadanayo adeegga saddexaad ee aan ku soo kordhinay shirkadda waxaa kamid ah adeegaas mar dhow aan soo bandhigi doono servicekiisa ama waxqabashadiisa in macaamiishu goordhow ay ka iibsan karaan tigidhyada qaab online ah oo macaamilku aysan u baahnayn inuu ku xirnaado travel agency-ga xilliga la furaayo ama xilliga la xiraayo oo travel agency-gu isaga ka maarmi karo website ama online aan u sameyn doono uu tigid ka iibsan karo oo kaarkiisa marsansan karo sidaa darteed macaamiishii sharafta leh aad ku qiimaha badan tigidhyada iyo service-ka iyo macaamilku inaga dhexeey in ka badan 8 sano ah waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan mar kale iyo tigidhyo qiimo jaban service aad u furan iyo wax loo magacaabo inaan mar walba ku soo dhaweyno qiimo aad u fiican oo iyaga raali geliyo iyo service hufan waxaan intaasi ku darayaa in aan ka soo gurnay adresskii hore ee aan degnayn Oslo Groenland Motsflgata ahay ee aan soo degnay meel aan sidaas ugu fogeen adresskana uu yahay midka hoos ku qoran Bregata number 10 halkaas ayaan hadda degannahay macaamiisha halkaas ay nagala soo xiriiri karaan ama waxay nagala soo xiriiri karaan telefoonada ku qoran shaashadda aad iyo aad u mahadsantihiin ku soo dhawaada gacmo furan iyo mar kale maan raxiim bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Norway waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa in xafiiskii tigidhada ee Aadan Travel dib loo furay tigidho jaban iyo aaminaad baad ugu imanaysaan xawaalada dahabshiil lagu hayaa marka sidaa darteed bulshada waxaan u sheegaynaa hadda wixii ka dambeeya wixii dhoofniina iyadoo lagu og yahay aadan ammaano iyo maxaan ahday shaqo wanaag lagu og yahay oo hore loo bartay aan idinku cusbayn halkan baa kala xiriireysaan waxaan aadan ugu mahadnaqayaa inuu dib u furay xafiiskii ay bulshadu u baahan tahay aad iyo aad baan idin salaamayaa xawaalada dahabshiil way ka dhinac furan tahay sidaasaynu isku ognahay raxmaan raxiim waa Axmed Cawad oo ah maamulaha dahabshiil Norway أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا قاعد عثمان عمر دول وشوقة أصل نوروي وحنا ما تكسر قبل الله حفلة الغفرية شركة دقوين ستكرر إلى هذا أطراف الأجنسي تذكرير نوروي ملك ستيت شوغان قارحان الصومالي دا وحنا وباقينا إن الشركة الله صو حريران أنا قلفت إذا عثمان عمر دولة ولا يوذكرنا يو وحن كم إذا هي حول ذي نظر الشركة دا waxay shirkadaasi sahli doontaa adduunka meel kasta oo u socoto kuwana fududeyn doontaa safarkaaga waxa weeyaan travel agency weeye waa isweydiin doontaan Soomaalidu waa iska oral society waxa weeyaan qiimaha ugu wanaagsan baa ku dhoofi doontaan kuna soo noqon doontaan si ugu macquulsan marka waxaan idin ka codsanaynaa dadkii Soomaalida Norway inaad la soo xidhiidhaan xitaa hadaad wadanka dibadiisa ku maqan tahay Norway ku soo socoto tigidhka waa lagu soo jarayaa
waxaa lagu keenayaa Norway magaalada doontaa lagu geynayaa dee gabadhan bismillah maanta waxaan goobjoog u nahay dib u furidda aadan travel agents oo dib looga furay Greenland dabcan aadan waxaa looga baratay tiida raqiis ah iyo service aad u wanaagsan marka ummadda Soomaaliyeed ay maaragtay ku nool magaalada Oslo nawaaxigeeda dabcan fursad fiican ay haystaan ay maaragtay uga faa'iideysan karaan sidoo kale wuxuu go'ayaa tiidada maaragtay oo deer bitaalinka ah marka qof walba waxaan leenahay ka soo faa'iideysta kula soo dhawaada insha Allah asna waxaan u duceynayaa Ilaahay inuu nuur ku saaro meel barakooda Allah ka dhigo soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdinaasir Maxamed Nuur ganacsada kalluunka iyo salamoonka ka shaqeeya dibadda gudahaba maanta waxaan ka soo qayb galay furitaanka tigidhada walaalkeen aadan agency runtii xaqiiqatan wuxuu u soo hormariyay markaan arkay iyo informationkiisa cusub marka sidii bangiyadii oo kale maanta deel bitaalan wax lagu sameeyay oo ku bixinaysid wax aad loogu farxo weeyo marka waxaan leeyahay ummadda Norway joogto Soomaaliyeed hadday gudaha joogaan hadday dibadda joogaanba hala soo xiriireen aadan agency oo u fududeyn doona tigidhada annagana waxaan leenahay hambalyo barakallahu fiik baan leenahay insha Allah taala assalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Axmed Salabaan Aadan waxaan horta marka hore ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaya travel agency-geenan cusub oo runtii ah travel agency aad ugu baahnayn oo shaqadana waayo aragnimo u leh iyo aqoon iyo waayo aragnimo labadaba u leh marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed dee la socda nin walba waa ninkiisa la yiri marka ku soo dhawaataan waa Oslo inoogu yaala Bregata Oslo runtii waan ku faraxsanahay in ganacsiga noocaas mar noo kordho waa isku filaa waa meel badan isku filaa shaqo gaarno xagga tigidhada xagga xawaaladaha maadaama bulsho Norway ku noolayno nahay inaynu inagu u baahanahay inaynu waxyaabo badan isku filaano marka sida hawlwadeennadu noo sheegeen waliba waxa weeye net bitaalin bay leedahay qofkii tigid net bitaaliga doonaya ku bixinaya 4 bilood 6 bilood 9 bilood marka intaba marka waxa weeye muulheedku fara badan yahay marka ku soo dhawaada dawaan ugu hambalyeynaa ninkan agency-ga cusubna aad baan ugu hambalyeynaya insha Allah mid khayr qabana Ilaahay ha inagu dhigo waan ummadda Soomaaliyeed oo meel jooga ugu ducaynaya insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga ah Deeqo Cali Guuleed ku nool dalka Norway gaar ahaan Oslo waxa maanta meeshaan aan ku dabaaldegnay agency-gii travel maanta laga furay in Greenland Ilaahay Oslo Norway Ilaahay waxa uga baryaynaa wiilkan walaalkeen ah inuu Ilaahay wuxuu u barakeeyo ma sha Allah soo dhawaada Ilaahay ka dhigaya emergency-gan halka bay noogu tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay ku soo dhawaada dad wanaagsan oo aad u carbiyeysan oo loogu talagalay shaqaale ah oo aad u shaqaale furan baa jooga ku soo dhawaada markaasi gacmo furan tigid jaban iyo gacmo iyo waji furan waa ka helaysaa waa ka qaybgalaysaa insha Allah hada barataan dhaqaaqi maysa annaga waa dhaqaaqo weyn ay ma sha Allah faraxsanahay maanta YouTube-ka lagu xiray ma sha Allah annagana waa faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno walaalkeen aadan meesha oo horan oo ugu furnaa haddana waa si casriyay meesha alxamdulillah travel aadan u soo dhaweynayna anoo fawziye mahadsan